kusoo dhowaada Maine Public News Connect, wararkii toddobaadlaha oo idinka imanaya idaacadda dadweynaha Maine oo ku baxaya afafka Isbaanishka, Faransiiska, Bortugiiska, Soomaaliga iyo af Ingiriiska. Bismillaahi raxmaani raxiim. Dacwad ku saabsan isbeddelka cimilada, tamarta cadceedda, xashiish sharci darro ah iyo is-soo bax ku saabsan Gaza. Asalaamu calaykum daawadayaal. Intaas waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu muhiimsanaa toddobaadkan. Maanta waa maalin Jimcaha, bisha Abriil ay tahay 26. haatan waxaad ku soo dhowaataan qodobadii wararka oo faahfaahsan oo idinla socodsiinayo anigoo ah Maxamuud Xasan. Dacwad ku saabsan isbeddelka cimilada. Kooxo dhowr ah oo deegaanka ah ayaa iyagu dacwado ku soo oogay waaxda ilaalinta deegaanka ee Maine iyagoo oo ku eedeynaya inay ku guuldarraysatay in la yareeyo qiiqa kaarboonka sida uu qabo sharciga gobolku. Waxaa haddaba ay sheegeen in DEP iyo guddiga ilaalinta deegaanku aysan qaadin wax tallaabo ah oo lagu dhimayo qiiqa gaadiidka 5 sano ee lasoo dhaafay tan iyo markii la ansixiyey sharciga cimilada ee gobolka Maine. Sharcigaasi ayaa wuxuu dhigayaa in gobolku uu dhimo 80% qiiqa marka la gaaro sanadka 2050. Haddaba gaadiidka ayaa ah qaybta ugu badan ee qiiqa kaarboonka keena ee Maine, kaasoo isagu gacan ka geystay kulaylka caalamiga ee sii badanaya. Dacwadtan lamid ayaa waxa ay keeneen khubarada deegaanka oo ka dhana iyagu waaxda ilaalinta deegaanka ee gobolka Massachusetts oo iyaguna ku eedeynaya inay ku guuldarraysteen fulinta yoolalka dhimista kaarboonada ee la meelmariyey sanadkii 2016. Tamarta cadceedda. Maine waxa ay heli doontaa $61 milyan oo maalgelin federaalka ka timid si haddaba loo ballaariyo helitaanka tamarta nadiifta ah ee loona gaarsiiyo bulshooyinka dakhligoodu uu hooseeyo. Maine waxay isticmaali doontaa deeqdan ay hesho si ay haddaba u fududeyso mashaariic tamarta cadceedda ah ee shakhsi ahaaneed iyo taageerada iskaashatooyin mashaariic tamarta cadceedda oo bulshadu ay wada leeyihiin. Haddaba ku dhowaad dhammaan gobollada waddanka ayaa xoogaa lacaga oo maalgelina ka helay barnaamijkan iyadoo loo isticmaalayo miisaaniyadda lagu magacaabay xeerka dhimista sicir bararka. Saraakiisha aqalka cad ayaa iyagu waxay ku qiyaaseen in barnaamijkani uu keeni doono in la kaydiyo ilaa iyo $8 bilyan oo lagu bixin lahaa biilasha korontada. Xashiish sharci darro ah. Nin ka tirsan ama ku nool degmada Penobscot ayaa ah qofkii haddaba ugu horreeyey ee waajaha eedeymo ku saabsan xeerka dembiyeed ee cusub ee waaxda cadaaladda baadhista xashiishka, taasoo iyadu ku eedeysay ninkaas inuu sharci darro ugu beeray gobolka Maine maadadan xashiishka. Saraakiisha booliska ee degmada Penobscot ayaa iyagu waxay baadheen guriga eedeysanaha oo ku yaalla waqooyiga Bangor dabayaaqadii bishii Febraayo, waxaana heleen ku dhowaad 40 rodol oo marijuana ama xashiisha oo la beeray iyada oo aan loo haysan liisan uu siiyey gobolku. Haddaba bayaan ka soo baxay xeer ilaaliyaha Maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in gobolka Maine ay ka jiraan ku dhowaad 100 meelood oo si sharci darro ah loogu beeray xashiishka, kuwaasoo xiriir la leh shirkado dembiyeed ama ururo dembiyeed oo kala duwan. Bilihii lasoo dhaafay sharci fulintu ayaa waxay sameeyeen howlgallo dhowr ah oo lagu baarayay marijuanada si sharci darrada loogu beeray gobolka Maine. Isu soo bax ku saabsan Gaza. Dibadbaxayaal ka kala yimid koonfurta gobolka Maine ayaa waxay isugu soo baxeen Portland usbuucii hore si ay u muujiyaan xaaladda carruurta ay ku sugan yihiin gobolkaas Gaza. Ilaa iyo 75 qof oo ay ku jiraan in ka badan 20 carruur ah ayaa iyagu isugu soo baxay fagaaraha Monument Square si ay ugu baaqaan xabad joojin rasmi ah. Xafiiska arrimaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay ama ku qiyaasay in ka badan 14,000 oo carruur lagu dilay tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas bishii 7 Oktoobar ee sanadkan soo dhaafnay. Hay-adaha gargaarka caalamiga ayaa sheegay in ka badan 1 milyan oo carruur oo Gaza ah ayna hadda awoodin inay aadaan dugsiyo ama waxbarasho sababtoo ah 90% dugsiyada iyo jaamacadaha ku yaala deegaankaasi oo la burburiyey ama la dumiyey. Soo baxa ayaa dhalinyarada iyo carruurta Gaza waxaa soo qabanqaabiyey isbahaysiga Falastiin. Halkaad nagala socoteen waa Maine Public News Connect. Intaas iyo sarag dambe waad mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.
waxaanu mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey shakhsiyaadka iyo hay-adaha taageera oo ka kala yimid dhammaan dhinacyada Maine iyo weliba Ku iyo Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing iyo IDEX. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey Patricia Ewan oo ku howlan isu soo dhoweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. Waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wada jir ahna waa meel ka sii weyn suuq. Si aad wax badan u ogaato, booqo hannaford.com. haddii aanu nahay Maine Housing, waxaan ogsoonahay in lahaanshaha guryuhu ay yihiin furaha horumarka. barnaamijkayaga iibsiga guriga ugu horeeya waxa uu leeyahay deyn dulsaar hooseeya leh iyo kaalmo lacagta horumariska ah ee guryaha qolalka badan leh. faahfaahin dheeraada ka ogow mainehousing.org. haddii lagaa gooyey caymiska caafimaadka ama noloshaada uu ku yimid isbeddel weyn, waxaad heli kartaa kaalmaad iskaga bixiso caymiska caafimaadka adigoo booqanaya coverme.gov. waxyaalo badan ayaa iska beddelay MaineCare. ka warhay si aad caymiskaaga u ilaashato oo warbixintaadii ugu dambeysay ku qor maineconnection.gov. shaqo wanaagsan baa halkan laga helaa. barnaamijka Maine Apprenticeship Program waxay ku siinayaan shaqo ku tababar lacag lagugu siinayo. wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir maine.gov/apprenticeship.